dowladda Soomaaliya oo qaadaysa tallaabo lagaga jawaabayo dagaaladii dhawaantani ka qarxay degmada Walaweyn sidoo qodobkaasi nagu hayo wariyaha Yaasiin Ali Axmed Yaasiin degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote oo ay qayb ka yihiin garsoorayaal wafdiga oo ka baxay magaalada Muqdisho ayaa waxay haatan kulamo gaargaar la leeyihiin mas'uuliyiinta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose iyaga oo kala hadlaya dilalkii halkaasi ka dhacay xubnaha wafdiga oo horkacayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxay degmada Walaweyn u tageen sidii ay uga jawaabi lahayn dilalkii arxan darrada ah ee dhawaan ka dhacay degmada Walaweyn iyaga oo bilaabi doona baaritaanada dadka lala xiriirinayo dhacdooyinka dagaalkii labada maleeshiya beelad ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu sababay in gudaha degmada dad lagu dilo kadibna meedadkooda la gubo taasi oo keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo ay geyso garsoorayaal ka socda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo horkacayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote Yaasiin Ali Axmed Loyal Radio Wadaniyan TV